بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كلنتي وعن وناكسن صاحبتي ku xiran YouTube channel-kayga Nasteexayeed Weyne soo dhawaada mar kale isku soo noqod kale iyo barnaamij xiiso badan oo caawa goobtan ku daahfurayno intaas barnaamijka daahfurin waxa ila jooga walaalkay Xuseen Mahdi gudoomiyaha kooxda Somaliland Academy Xuseen waxaan markii kuugu horeysay YouTube-kayga ka soo dhex muuqanayso ku soo dhaw YouTube-kayga oo ku dhaw walaal aad iyo aad waan ku faraxsanahay rumaantii inaan nasteexo barnaamijka YouTube-keeda nasteexo YouTube-keeda rumaantii aan ka qayb galo aad iyo aad ma rumaantii ugu faraxsanahay kana soo dhex muuqdo kulli waxaan jeclahay rajaynayaa ahaan mayso kulli markii ugu horeysay laakiin kadib waxaan insha Allah rajaynayaa inaan macal quraacda soo diyaar garowdan dadku qadiya cash sheegaan inaan quraacda inta soo diyaar garowda dilaatay aad walaal maadsantahay Allah ku sharfo saad noo sharaftay barnaamij barca waran ku daahfuraynaa aniguna waxaan jeclaystay barnaamijkan qofkii ugu horeeyay ee caawina daahfura inuu Xuseen noqdo sheeko wadaag programkan la yiraahdo waxaan ogaay inaad xagga sheekooyinka iyo storytelling-ka aad ugu wanaagsan tahay waxaan idhaa Xuseen ciidan hayna programkan caaw kula daahfuri mayso sidoo aragtaa sheeko wadaag rumaantii aad iyo aad ugu faraxsanahay diyaarna waan wahay waayahay sheeko wadaag waa barnaamij taxanaynoo noqon doona waxaan ugu talagalnay qof walba oo hayo sheeko cajiib ah misana jecel inuu bulshada la wadaago inuu halkani aan ku soo bandhigno nalana wadaago aan ugu horeyn soo dhaweeyo Xuseen sheekada waxa barnaamijka ka qayb qaadanayo markaan ugu idin sheekay ma idin lana hadli maaye Xuseen baynu ugu wareejinayna mikrofoonka aniga idinku inuu ka gureynaa sheekada haye Xuseen sheekada isma magaceed sheekada hayo waxa la raadaa laba qof oo isjecel oo romantii jacaylkooda ay ku saabsan tahay sheekadu jacayl bay ku saabsan tahay laba qof oo dhalinyaro isjeclaaday waa cajiib taasaynu markaa wada dhageysanayna soo dhaw Xuseen romantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo muuqdo barnaamijka dhexdiisa nasteexo YouTube-keeda romantii aan caawa ka soo dhaxlayo aan waliba aad ugu faraxsanahay inaan noqdo qofka ugu horeeya caawa barnaamijka bilaabay mar romantii ka qayb qaadanaya kulay sheekadan kaga qayb qaadanaya soo bandhigaya waxay noqonaysaa sheeko jacayl qiso ka dhacday Hargeysa oo wiil iyo gabadh dhexdooda martay aan romantii ka sheekeyn doona waayo haddaba aan inoo bilaabo sheekadii idinkuna si fiican u dhageysta kulay sheekadu waxay ku bilaabantay markii ugu horeysay wiil baa jiray dhalinyaro ah ka bacda Hargeysa deganaa kulay xaafadu deganaa anigoona sheegin laakiin xaafada Hargeysa kamid ayuu deganaa gabadhuna kulay sidoo kale iyadna ka bacdi wiilku wuxuu wiil ciyaartooy kubadda ku fiican ka bacdi Soomaali walba kubadda u aadi jiray galab walba kubadda u tagi jiray ayaa waxa dhacday markii dambe inuu gabadh ay ku kulmaan meel uu ka sii ciwaaf ka sii qaadan jiray marka uu sii marayo kubadda uu sii tagay ka bacdi gabadhii aragtidii horeysay gabadhii arkay waa caashiqay wiilkii iyadna way caashiqday kale caashiq weeyaan kale markay is caashiqay wiilkii gabadhii jacayl baa dhexmaray jacaylka dhexmaray isaguna uu jeclaaday gabadhii iyadna way jeclaatay isaguna uu sheegan iyadna uu sheegan ka bacdi xujo waxa timiday xaafadaha dhexdoodana dhex timiday in romantii gabadhaas qofkii gabadh qurux badan markay dhalinyartu arkaan waxay u kala tartamaan ka bacdi tartan baa loo galay gabadha qofkii soo xirigelinaa mar romantii jacayl la wadaagi lahaa ka bacdi waxa dhacday labada qof ee aragtidooda is qaadatay inay jacayl wadaagaan maalmaha kamid ayaa waxa dhacday iyagoo guri meel kamid ah daaqad wada fadhiya ay wada sheekeysanaya in lagu soo maro ka bacdi halka lagu arko ka bacdi lagu calaamad saaro saynis ku jecel in faraan looga qaado maadaama ku guuleystay wiilkaasi gabadha quraacadka quruxda badan leh haba haatee ka bacdi wiilkii gabadhii waqti waxay wada qaataan ay nolol fiican ku wada noolaadaan ay gurigoogii markii u dambeysay waxa timiday in labadooda reer ay iska soo horjeestaan ay guriga ka soo horjeeday gabadha ay soo degan gurigooda ay gabadhii reerkooda soo guureen waxay soo degan wiilkii guriga ka soo horjeeday waxaaba u fududaatay sheekaysigooda wada noolashooda yacni jacaylka in hore si wataan ayaaba u fududaatayba maadaama ay jaar noqdeen gabadha waxa dhacday maalmaha kamid ah ayaa wiilkii hawl ku soo baxday hawshaas oo wadanka looga baxayay oo dhanka Itoobiya yaa romantii u soo baxday gabadha wuxuu jeclaystay inuu Itoobiya u qabto maadaama familkiisa ku amreen amar balasi amarka uu qaatay waalidiintiisa qayb kamid ah halka joogtay oo romantii qofka ku xanuunsanayo hooyadeed ahayd ayaa romantii halka ku xanuunsay ayeedii ka bacdi sidii buu ugu tagay wiilkan waxa loo diray uu tagay waxay ahayd inuu ayeedii u tago garab siiyo oo romantii caawiyo sheekadu waxay saahaataba waxa isku dhacay wiilkii familkiisa iyo gabadhii familkeeda oo dhanka hooyadeed iyo isaga eedadiya ayaa waxa dhacday in isku dhacaan
ay kabacdi ay khilaaf u dhex maro ay kabacdi labada reer isku dhacaan sheekadu waxaa markaas la soo dhexgeliyay dumar sheekadoodan waad garanaysaa kulley halkii sheekadu marka hore ay reerku isbarashadooda ka yimid yay keenaan kabacdi islaantii gabadha ay dhashay ayaa markiiba waxay la soo booday tiri haddii ay halkaas sheekadooda naga marayso annagu waan ka guuraya halkan inankiina naga ceshada kabacdi iyo inankeegu anagu qaladka male inantiina qalad kale inantiina soo doonato halkan gurigooda ugu soo degtay idinkaaba soo doontay yacni noo soo doontay dee gurigeygii kabacdi waxaa dhacday in gabadhii laga raro gurigii ay ka guurto kabacdi way raadinaysaa ilaan waa beer wax jecel oo romantic wadnahey uu ka maqan yahay kabacdi isku dayda inay raadiso muddo waxay raadinaysay 8 bilooda iyo wiilkii raadinaysay u baaxadegaysay halku ku sugan yahay halku sugan isaguna wax alaali wax telefoon wax xiriir uu soo diray ma aysan jirin gabadhii ayaa waxa laga dhaciyay been abuur yacni waad garanaysaa qof hadii maanta la doonayo uu guursan hadii la oranayo isagoo guursan in la sii rafo loo faahfaahin karo ama maanta loo booboonin karo kabacdi waxa loo sameeyay wiilkiiba sheeko aroos loo sameeyo gabadha laga dhaadhiciyay wiilkii uu guursaday familkii wiilka ayaa waxa gabadha ka dhaadhiciyay wiilkii uu guursaday halkaas ay ayadii ducadeeda ku qaatay oo duciya habaar kala doonaa la yiri ducadii buu qaatay oo wiilkii uu guursaday inaan wax ku daashay meesha ma yaalaan dee quuso adoo inantii waxa quus bay dhigtay inankii baa kabacdi waxa dhacday inay dawooyinkii dhakhtarka uu soo dhamaaday ayadii kabacdi dib uu soo laabtay Soomaaliland markii Soomaaliland mid reer ku soo noqday ayuu wuxuu ogaaday gabadhiina guriga ka guurtay wuxuu isku dayay gabadhii sababaha guriga ugu guurtay inay raadiso uu raadiyo idadii wiidiyada ka warhayay gabadha waan kugu ogaa maxaa dhacay waxa ma dhicin way guureen gabadhiina reer kala yeelatay bay idna ka dhaadhicisay oo yacni waxa meesha taalayna familiadii isku direen wiilkii iyo gabadhii kabacdi wiilku wuxuu go'aansaday gabadhii inuu raadiyo aduu muddo ilaa 5 bilood meelaha ku dhawaad hadii wax dheerayn uu kabacdi gabadhii uu raadinayo muddo aad u fara badan rumaantii markuu raadiyay gabadhii ayaa waxa dhacday inuu sidii kaga quusto soo gabadhii quuska istaagan ayaa maalmaha kamid ah dhacday anagoo suuqa wada joogna inuu gabadhii iyada ay walaalaha hayeen uu codkeeda u maqlo kabacdi inuu gabadhii u tago ku raa walaalahe uu gabadhii la hadlo yacni waayihiisa noloshiisa kala hadlo raa bal gabadhii walaasha iga waran iyadna yacni qof walaasheed go'aan laga gaadho laga guursaday gabadhna garanaysa ficilna lama soo wado ha wasiir kibrisay kabacdi naga dhaqaaqay inuu wuxuu go'aansaday inuu gabadhii ka daba tago uu ka daba tagay uu daba guro gurigooda albaabkii marka soo gashay ka daba garaac hebelo waa lagu qabsanaa dad walaalo albaabkiyada waa ka furtay hebelo waa lagu qabsanayaa guriga hadda tagto intaas dhibaato dhacday iska noqorado iyo noqon maayo gabadha u jira gudihii buu dhaafay waalidiinteedii gurigii dhex fadhiya yuu dhaafay heblaayo meedayo qolkii loogu tilmaamay buu galay yariisiro guriga joogta u tilmaamtay kabacdi qolkii buu galay sida qolkii marka uu galay gabadhii aragtideedii dhaayay ka qaaday wiilkii ayay ku dheegigtay kabacdi waa soo carartay dhinaciisii ha dee laba qof oo isjecel kabacdi wiilkii gabadhu isku dhigeen habay isku dhigaanay ooyin bay dhamaysteen markii ay isku dul ooyin halkii ay dhamaysteen ay gabadhi intay mar dib uga joogsatay ku tiri walaal adigoo raaliya oo romantii xiriirkeena hore inooga dhaxan jiray tixgelinaya waxaan ka codsanayaa si nabadgelyo inaad guriga uga tagto kabacdi intaasina qalad ay ku ahaato kabacdi wiilkii isagoo sidii ayuu walaalihii u imanayaan nadaaf wax noocaas kale la soo saaray wiilkii kabacdi gabadhu buu oranaya habeen dambe waan ku sugaya kabacdi gabadhii habeen dambadii halkii buu sugaya ay ku wada kulmi jireen waa u iman waaysa habeenada kamida ayuu lambarkeedii intuu fariin u diray buu ku yiri heblaayahe waan ku sugaya waa go'aankii ugu dambeeyay weeyaan waxaan rajeynaa ma jecel rumaantina ay timaad iyadoo gabadhii gaari wadato gaari lagu wado ayay guriga timid ayay ugu timid bartii gurigooda agtooda ahay kabacdi gaarigiiba ka soo degtay ila show gaariga nin baa ku wada way gabadhii inankii markaa hor timaday yuu u sheegay yacni markaanad qalad aanad lahayn oo qalad dush lagaa saarayo waxaad ku dadaalaysaa habkii aad qaladkiina aanad u lahayn qofkaad uga dhaadhicinayso horena waxaa loo yidhi qof meel u caddahay meeli ka mid gabadhanayna waxaa laga dhaadhiciyay xaqiiqada inay taasi tahay iyadna nolol kale inay samaystay go-aan ku gaadh wiilkii wuxuu ku yidhi saas wuxuu jiran way ka asmiyey gabadhii si kasta u ooydo isaguna si kasta uu waayihiisa ugu bandhigto si kasta uu runta inuu fahansiiyo uu damco gabadhii way ka qaadan waayeysaa kabacdu ka dhaqaaqaa haba ka dhaqaaqday markii saa alaaliya sidaa uga dhaqaaqdo ayuu wiilkii wuxuu idhaahdaa aduu erayo kale ayuu u tiriyey gabadhaas haba u tiriye kabacdi markaa gabadha Sakiya la oranayay wiilkan Axmed baa la oranayay kabacdi gabadhii markuu sidaa u arkay wuxuu yiri qiimo badan Sakiya qajeela dareenkii qushuucda jilayso qalqalooca feeraha qeyra ka buuxday qaayidkii naftayda maxaad ii qorshayso qasanaanta sheekada qaladka ana gale تكالي سكيد يعني يقرها للنقو يعني حساسه كلام قلت كيبا يعني نسوق صارته قصنات الشيكة قلت كان جاب قلبته الشيكة دي هالك هاي نجاي قبل كبعد ويل كيبا وباقي جاري قصرنا
kabacdi gabadhii intii sidaa isagoo horta muddo ku tiri wiilkan aan ku baro waa iyadoo yacni aan xamili karin oo oolinta ka socota ayaabaysid ayay haddana say ka dhacdhicinaysaa wiilka gaariga wadaa in wiilkiida guursanayay uu yahay oo beri maas haddaban loo soo qal fadhiisanaya gabadhii kabacdi gabadhi gaarigii way fuushay way tagtay wiilkii baa dib igu soo noqday yacni wax kasta dhibaato kasta uu maray problem kasta uu maray yacni sheekadiis waxay noqotay sheekada taxanoo sii dheeraato sii socoto yacni mar walba gabadha uu daba taagnaada mar walba uu daba taagnaa iyadoo la mehersadayba xataa daba taagnaa waa la aroosay xataa uu daba taagnaa aluutu wuxuu markii dambe ay ku qancday gabadhii wiilka ku qancay gabadhii inuu ninkii haysto ay dhaafaan ilaa iyo dhulkaa dibadaha qurbaha ay rumaantii aadaan uu wiilkiina isagii qisadiisa iyo noloshiisina halka ku wada haraan sidaas ayay qisadaas ay ku dhacday amar maanta kusoo gabgabo xuseen waa qiso aada u murugo badan dhammaad foolxun bay ku dhamaatay markaad marinaysay gab maasada inuu kugu tiriyey waxaan islahaa anigu horta khaasatan waxaan sawirinaya dadka barnaamijka daawanaya way inoo soo sheegi doonaan anigu waxaan sawirinaya inay markaa la heshiiso mar haddii khaladkii wixii aan jirin familku buunbuuniyeen أو كارد واحد شلو هذا نقلت كذا أو قاتل. وسووا قلت كقاتل. حنا سلام كم كشغل مرة سووا هالشيء وأراس جيبا مسويه وكذا لكن يستندعين دمات دمرك بدأ بقصة داس دمات. تقلد هنا يسقول هاي يدوش لقى ساري. صح. هبل لقى ساري يعني تاسي واحد كوكينسا. ورتين تبادل واحد اللي عنده أنو لين عن كساريا. واحد شرته وحيابي أولاد أنت توسيان السلام وحاسيدي قروح بدل. أي والدين تقاركود أي كلا داديان. يعني واحد أنو إيد ساريا أمر ما تحو عن إيدين يا واحد تهم كان ساق الصلاة وأركو. ويل كإددي. يجبرده هو يدي. أيان إيد ساريا. واي نلاش أين جبرده سنول بدو كنا لاتو. يسوون نلاش بدو وقلو يجا مسؤولية ده لا. ويجتا أنت بدل تتكيس شعل dhibaatooyin badan bay la kulmaan mid kamid wax weeyaan dhibaatooyinka xagga familka kaga imanaya sheeko wadaag intaasaan kusoo gabagabaynaynaa sheekadaasi la yaab kale dhamaadkeedu qeyrada yahay xuseen mahdi baa inala wadaagay intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sheeko wacan